jaamacadda Uganda ayaa waxa ay farac cusub ka furatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taas oo qayb ka noqonaysa jaamacadaha ku yaala deegaanada Puntland waa kan wariyahana Ayuub Cabdikariin Cali oo warbixintaasi inoo faahfaahiya. jaamacadda Kampala oo ka shanaysa dhigeeda Bariga Afrika ayaa magaalada Boosaaso ka yigleeshay laba mashruuc waxbarasho kuwaasi oo kala waxbarashada masterka iyo barnaamij sare loogu qaadi doono tayada macallimiinta dugsiyada sare. ugu horeyn waxa madasha ka hadlay madaxa waxbarashada ee jaamacadda Kampala Master Bosco. Postgraduate Studies and Research at Kampala University. I stand here as representing the Vice Chancellor, His Excellency Ambassador Al-Haj Professor Emeritus Badru Dungu Katerega, who requested me to come and join hands in hands with East Africa University in order to launch this very important program that is being run jointly with the Kampala University and East Africa. madaxda tacliinta sare ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika Maxamed Maxamuud Ciise ayaa tilmaamay in wax badan uu ku soo kordhin doono jaamacaddani sare u qaadida tayada waxbarashada deegaanada Puntland. waxaan aad iyo aad idinku hambalyeeynayaa inaad shaqadiina idinkoo jooga oo habeen aan bixin oo mushaharkiina qaadanaya oo caruurtiina la jooga oo reerihiina ka warhayo dhakhtarka geysanaya inaad masterti guriyeena ku qaadanaysaan oo waliba meel fiican ay idin marayso. aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay soo dhawaada wassalaamu calaykum. barnaamijkan aniga aad iyo aad waxaan ku soo dhaweynayaa qodobkan ah in sare loo qaado aqoonta macallinka. macallinku waa aabbaha suulinta jahliga, waa aabbaha la dagaalanka jahliga, waa aabbaha la dagaalanka indhala-aanta. macallinka tayada leh waa kan soo saara arday taya leh. marka muhiim waxa ah ama jaamacada ha ahaado ama institutionska kaleeto ee jira ee aqoonta muxuu ahaayey wada ha ahaadeen laga soo bilaabo min waxbarashada asaasiga ama waxbarashada koowaad tan labaad ilaa tan saddexaad waa in muxuu ahaayey la soo saaro macallin tayo leh. haddii aan la helin macallin tayo leh aqoonteenu ma gaarayso standardkii caalamiga ahaa ee loo baahnaa. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray duqa degmada Boosaaso Engineer Yaasiin Mire. ladan loogu daahfurayo postgraduate-ka ardayda masterta ah oo ugu horeysay saan qiyaasayo jaamacadda Kampala University inay la wadaagto jaamacadda East Africa. waxaan leeyahay waa horumar soo siyaaday. waan bogaadinayaa maamulka jaamacadda Bariga Afrika oo runtii ah jaamacadda ugu faca weyn ee jaamacadaha haatan ka jira magaalada Boosaaso uguna baaxadda weyn. Cabdikariin Cali, Somali Cable TV, Garowe.